بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواء channelkeena farxiya kushiin asxaabta qaaliga ah markale iyo muuqaal cusub. Maanta waxaan inoo wadaa qada dhameystiran baasti iyo suugo kala kacsanan inaba caadi ahayn ma sha Allah tabarakallah. Ugu dambeyntiisaan ay ku soo baxeen ka faa'iideysi wacan hadii suugo baasta ku dhibtay saan u sameyso. Baasta ma ogi wax kala kar lagu ma dhaan fahanteen ma sha Allah. Soo dhawaada ka faa'iideysi wacan muuqaalka like noo saara dhinaca kaleeto waxaan soo qaatay digsi. marka hore baastada rabo inaan kariyo bariis la lagu waashin faanteen maanta waxaan dhahay baasta mardoomiina cunina baasta kala kacsanaan oo sameynaya biyihii baastada ayaan dabka saaray biyaha intay noo karkaraan dhinaca kaleeto 3 xabo ayaan dabka saaray yaanyada ha yara bislaato biyihii waa ay soo karkareen cusbadii aan ku daray baastadii ayaan ku riday baastada dhanba 3 daqiiqo ayaan karinayaa kadib waan kusoo laaban doonaa insha Allah waxaan rabaa dabka inaan ku celiyo meeskoota amalan karawaa marka hore hadii ka dab raacdo dabka kuma celin kartid ayada dhanba way ka halaabaysaa intaas kadib hadda baastada diyaar waaye 3 daqiiqo macnaha si fiican uma bislaarin waxaan rabaa inaan soo miiro waxaan soo qaatay baasta miirkii baastadii aan ku soo gudiyay intaas kadib wax yar oo biyo lagu rusheynayaa waa kaasa baastadii dhinac ayaan u dhigaynaa intaas kadib waxaan soo qaatay digsigii ayaan dabka ku soo celiyay wax yar oo saliid ayaan ku shubay kadibna basal ayaan ku darayaa basashii markaan ku daray wax yar basashii markay yara bislaatay si idin muuqato waxa ku soo gadinaysaa baastadii markaa ku soo gadiyo qaadada dhaxmarinaya baastada hadaadan dhaqin way isku dhagdhagaysaa soo ina dhaqdid ku haboon biyo ku shubeysaa markaa dhaqdid kadib waa ka saaxabado meel hada daboolkan saaraya 2 daqiiqo dabka u dhaafeena markay diyaar noqoto ay ku soo laabanina insha Allah dabkan waan u yareynayaa hadii ay tahay channelkan markii ku wareys aad soo booqato waxaan ka codsanaa subscribe na taawatid kadibna gambalelka taawo si muuqaal walba oo soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah hadii aad gambalelka taawatid muuqaal walba soo dhigo waa la socon doontaa dhinaca kaleeto wax yar oo jibsi ah rabaa inaan kariyo oo suugada rabo inaan ku habeeyo jibsiga markuu diyaar noqdo ayaa ku soo laabaneynaa ma badno suugada la ugu tirigalay inaan ku habeesto suugada qaabkan u sameynaa hadii aad u sameystid aad ay ku cajab gelin doontaa jibsiga intuu nooga bislaanay dhinaca kale cabitaanka si diyaarsanayna cabitaankeena 2 shay oo kaliya ayuu ka kooban yahay mid koowaad waa qarihii markaan soo gogooyo saas ayuu ku soo baxay maxumo ma sha Allah tabarakallah intaas kadib yani waxa asla ama cadaad oo ka noqdo cadaada cadaan haduu noqdo waxa waxta lama shiidi kar la cuno iska baday asaga dhandhan ma yeelanayo qarihii markaan soo gogooyo kadib waxaan soo qaatay mashiinka ku soo riday intaas kadib shayga labaad oo rabo inaan qaraha kula shiido wuxuu yahay caleen nacnaca ama caleen minsa u taqaanidba carafi u yeelaysaa dhadhan ma sha Allah intaas kadib biyo aan ku soo daray saa ujeedaanba xabada qaraha dhanba waxaan rabaa inaan soo shiido cabitaanka oo familka dhan waaye cabitaankii maxaan ku raraa qarihii markaan si fiican u soo shiiday kadib waxaan soo qaatay digsigaas oo dhalada ah cabitaanka ku soo miiraya dhinaca kale jibsiga diyaar waay saas ku soo baxay dahabiga qurux kaal iska arag baasta miirka ku soo guraya dhinaca kale cabitaanka dhan waa soo wada miiray intaas kadib waxaan ku soo darayaa sokorta adaa ku badsan karo adaana ku yareysan karo sheekadii cabitaanka saas ay ku soo dhamaatay waa kasaa qaraha saan u shiido caleenacna markaa ku dagta caraf dhadhan lagama sheekeyn karo dhinaca kale waxaan bilaabaynaa suugadii digsiyan dabka saaray waxaan ku soo shubay saliid 2 xabo basal oo aan si yar yar u soo jarjaray ayaan ku soo daray basasha markay yara bislaato ayaan ku soo laabaynaa saliidan suugada adaa u qiyaasan karo adaa ku badin karo macnaha adaana ku yareysan karo qiyaasta rabto ayaa ku dari kartaa saliida intaas kadib basashii markay yara bislaatay waxaan soo shiiday yaanyadii 3 xabo iyo caleen nacnac isku soo shiiday ama minsa u taqaanido ama kabsar caleen ku soo shiidan kartaa waan ku soo gadiyay kadib waxaan ku darayaa hal qaado oo yahay shishiid ah shishiidi markaan ku soo daray kadib waxaan sameynayaa waxaan ku darayaa xawaaji isku dardar hal qaado barbarooniga shiidan hal qaado oo huruud ah qaadada haafkeeda oo cusbo ah cusbadan adaa ku badsan karo adaana ku yareyn karo kadib waxaan ku daray toon shiidan kadib qaadadan dhaxmarinayaa afaarahan dabka la rabo inaa u yareysid daboolka dhab ku siinaysa suugada markay bislaato ayaan ku soo laabaneynaa ayadoo saan hadii qudaartii wixii ku diyaarsan ay hilibka dhahdo ku daraaya ayadoo dhan maraqay ka noqonaysa ma fahanti suugo rasiina laga rabaa oo kaal iska arag ah dabkan u yareynaa daboolkan saaray kadib waa ku soo laabtay hadda waa ka saliid markay kor soo marto suugadaada diyaar waay intaas kadib
waxaa ii diyaarsan suqaar hilib suqaar oo si fiican usoo bisleeyay ayaan kusoo daray waa ruwac kadibna digirta cagaaran iyo karooto oo soo bisleeyay ayaan kusoo darayaa kadib waxaa kaloo kusoo darayaa jibsigii suugadii waa kaasaa suugo 1 2 3 oo dhadhankeeda laga sheekeyni karin maasha Allah hadaa doontid basal iyo barbarooni iyo intaad soo gogoysay kabsar caleen dush waa uga dari kartaa laakiin intaan suugadana dhanba waa taasaa kadib waxaan sameynayaa qaadada dhexmarinayaa qaadada markaan dhexmariyo waxaan u dhaafayaa 2 daqiiqo oo kaliya qudaartu way bisishahay hilibku bisil yahay suugada sidoo kale waxaa rabaa inay si fiican isku dhexgalaan oo la kala dareemin macnaha in la isku soo dardaray in loo malay macnaha in hal mar la wada kariyay waa inaad 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo dabka u dhaaftid dabka u yareynaa daboolkan dabka siinaya markay diyaar noqoto ayaa ku soo laaban doona insha Allah suugadii waa kaasa hadaadan wali saan u sameysanin soo tijaabi aad ay ku anfici doontaa muuqaalka ilaa halkan hadii aad soo gaartay like-ta hanaga baqeenin like-taada wax weyn ayay noo tahay jazaakallahu khayran dhinaca kaleeto qadadii hada diyaar waaye waa soo diyaarsaneena waxaan soo qaatay saxankii ilaa 2 qof ayaan usoo diyaarinayaa suugadii waa taasaa dhinaca kaleeto saxankii markaan baastada kusoo riday kadibna waxaan soo saarayaa suugadii yaa basbaaskaagii salarkaagii mooskaagii usoo qaado hadii waxaan ku dhahay lagu yeeray xitaa maqliisan ku dhahay alaabtan marka isku taawatid yaa lagama sheekeyn karo maasha Allah dhamaantiin intii ugu cusub waxaan idin leeyahay ama subscribe cusub soo dhawaada qalbi furan iyo wali niyad saafi ah hadii aad nagu soo biirto channelkan wax badan ayaa ka faa'iideysaa ha ismartiyeenin mininkaaga waaye muuqaalka markaa dhameystaan share gareeya hal qof hal group intaad awoodaan u share gareeya meel walba isleedihiin ku share gareen kastaan ku share gareeya waa mahadsantihiin intaas kadib waxaan soo diyaarsanaynaa cabitaankii familka waa kaasa qaraha cambaha maxaan ku raadaay cabitaanka doonta ayaa ka dhigan kartaa ugu dambeyntii waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen cabitaankii iyo qadadiisas ay ku soo baxeen maasha Allah tabarakallah muuqaalka like noo saara asxaabtina u sii share gareeya waa ku mahadsantiin daawashadiina koomentiyadiina iyo waliba dhiirigelintiina dhinaca kaleeto waa saliida FK waa saliid dabiici ah saliid qumba nadiif iyo qudaar la isku hagaajiyo waa caruur iyo ciroole qof walba waa loo marin karaa numberkan u jeedaan waa numberkayga waa soo wici kartaa WhatsApp igala soo xiriiri kartaa hadii xamar aad joogtidna waa kaasa numberka meel walba aad joogtidna numberkayga kale taa igala soo xiriiri kartaa saliid waxa waa saliid dabiici ah saliid qumba nadiif iyo qudaar la isku hagaajiyo waa timaha way bixisaa jajabka ka ilaalisaa timaha qaleelkan way ka saartaa tintaad hadaysan bixaynin saliidan soo tijaab aad ay ku anfici doontaa jumla iyo tafaariiqna waa ku bixinaa waana qiimo macquul ah waana lagu soo dhiibi karaa